magacaygu waa Samiira Yuusuf Aadam waxaan ahay arday dhigata qaanuunka ee jaamacadda Muqdisho hadda waxaan u gudbayaa sanadka saddexaad waxaana ka mid ahay ardaydii ka qayb qaadatay tartankii ay qabanaysay hay'adda ICRC ee ku saabsanaa International Humanitarian Law qaybteeda Soomaaliya tartanka markii hore waxaa lagu soo bilaabay waxaa tartamayay jaamacadda adigu ilaa 6 gaaray oo Soomaaliya ah baa tartanka la soo dhigay markii hore waxaa lagu tartamayay qayb writing ah oo la qorayo writing laba qaybood baa la qoray qaybta difaaca oo defendant iyo qaybta prosecution ka xeer ilaalinta labada waa la qoray waxa loo direeyay gudiga loo direeyay markii la diray bishii 8 baa waxaan la soo siiyay jawaabta oo waxaan u soo gudubnay qaybtii oralka ahayd tartanka tooska lagu tartamayay waxa soo gudbay anaga jaamacadda Muqdisho iyo jaamacadda ummadda Soomaaliyeed labadeenaas baa ku soo gudbay qaybtii finalka ahayd isugu imaaday oo ku tartamayay qaybta oralka oo la iska horkeenay ardada tartanka si oral loo qabanay markii hore writing baa lagu tartamayay iyadoo qoraal ah anaga iyo jaamacadda ummadda waxaan loo qori tuuray ka prosecution ama xeer ilaalin iyo difaac ka noqonayno anaga waxaan noo soo baxay xeer ilaalin noqonayna iyagana difaac inay noqonayaan shalay baa hay'adda ICRC noo qabatay anaga xeer ilaalintan ku tartamayna iyagana difaaca kiisa haysanay saddex arday anaga naga tartamisay iyagana saddex arday baa ka tartamayay waxa lagu marka koowaad waxa la shaaciyay natiijada qoraaladii la diray bishii hore ee jaamacadaha Soomaaliya oo dhan anagoo ku guuleysanay qaybta xeer ilaalinta u fiican jaamacadaha Soomaaliya sidoo kale waxa ku xigtay la shaacinayay 6 arday baan ku tartamaynay marka best speaker ardayga ah hab soo jeedinta ardayga ugu fiicnaayo kale taasna waa la shaaciyay oo aniga Samiira ayaan ku guuleystay sidoo kale waxa la shaaciyay teamkii ku guuleystay tartanka natiijada soo baxay intaas ay noqotay teamkii ugu dambeyn u bixi lahaa dhanka Nairobi oo sida Afrika oo dhan uga qayb qaato teamkaasna jaamacadda Muqdisho ka socday ayuu noqday intaas tartanku soo ekaa So it certainly wasn't an easy effort for us, but we would like to announce Mogadishu University. طبعا فرحات gaara dareemay inaan dadaalkan geliyay tartankan mirihiisa inaan helay farxad bay yahay tartankan ay ku guuleysteen ardada kuliyadda shariicada iyo qaanuunka ee jaamacadda Muqdisho ma ahan midkii ugu horeeyay oo noocan oo kala ah ay ku guuleystaan tartamo badan ay hore ugu guuleysteen tartankan hadda wuxuu ku saabsanaa xeerarka caalamiga ah ee bini'aadanimada waxa soo qaban qaabisa laanqeyrta cas ee caalamiga ah sanad walba ayaa tartankan waxa loo qabtaa ardada jaamacadaha Afrika wadan ayaa loo tartamaa wadan walba jaamacadaha ku yaal ayaa tartama marka jaamacadda kuliyadda shariicada iyo qaanuunka ee jaamacadda Muqdisho ayaa ku guuleysatay waxay ka guuleysatay dhammaan jaamacadihii dalka ayada ayaana mathilayso ardada Soomaaliyeed ku mathilayso tartanka ardada Afrika loo qabanayo ee Nairobi loo qabanayo loo madalsan yahay bisha November 2024 hadii aan leedmo sidoo kale sanadkii hore waxaa ku guuleystay kuliyadda shariicada iyo qaanuunka jaamacadda Muqdisho ardadeeda ayaa ku guuleysatay waxay ka guuleysteen jaamacadaha Soomaaliya oo dhan iyaga ayaa mathilay ardada Soomaaliyeed waxay aadeen Caruusha halkaas markay tageen way ku guuleysteen qareenkii ugu fiicnaa qareenada meeshaas ka doodaysay dabcan waxaan rajaynaynaa insha Allah guul waan rajaynaynaa tartankan maanta aan ku guuleysanay waxaan ku soo gaarnay juhdigeena ku soo gaarnay waxaan rajaynaynaa xaqana inaan laba doono juhdiga ayaga markan waxa la matalayaa dalka ayaga dhan Soomaaliya dhan baa matalaynaa markan ka xaq tagno inaan juhdigeena laba laabno iyo dadaalkeena waan rajaynayaa xaqana aan guul ka soo hayno insha Allah